4 maalmood oo keliya waa geeri ama nolol. Ma garanaysaa muddadaasi waxa ay Iiraan uga dhigan tahay haddii xal kale la gaari waayo? dhaqaalaha Iiraan oo ku dhowaad kala bar ku tirsan shidaalka ayaa gebi ahaanba baabi'i doona. ceelasha shidaalka ayaa si aan soo noqosho lahayn adeegga uga bixi doona. waa maxay sababtu? Iiraanna ma heli kartaa waddo ay musiibadaasi uga badbaado haddii uu Maraykanku go'aansado inuu go'doominta ku sii hayo? 13 bishan Abriil, saacado uun kadib markii lagu kala istaagay wadahadalladii Islaamabad, Trump wuxuu bixiyey amar uu nuxurkiisu ahaa in xayiraad dhammaystiran lagu soo rogo dekedaha Iiraan, taasoo ay fulinteeda qayb ka yihiin in ka badan 10,000 oo askari iyo 10 maraakiib iyo diyaaradaha dagaalka ah. Washington ayaa waddadan doorbiday maadaama diblomaasiyadda iyo milatariguba ay keeni waayeen natiijadii ay filaysay. cunaqabatayntu waxa ay Iiraan dhabarka ka saaraysaa khasaare gaaraya $3 bilyan isbuucii. waa in ka badan $400 milyan oo khasaare ah maalin walba. shidaalku waxa uu daboolaa qiyaastii 40% miisaaniyadda dawladda Iiraan. laakiin waxaa jira khasaare aad uga baaxad weyn lacagtaasi $100 milyan ee Iiraan ay maalin walba lumiso. ceelasha shidaalka Iiraan ee soo saara malaayiinta fuusto maalintii, haddii ay heli waayaan meel cadaadiskaasi looga neefiyo oo shidaalkaasi lagu bixiyo, waxay wajihi karaan musiibo dhinaca farsamada ah oo halisa, taasoo si daa'in ah u naafayn karta ceelasha saliidda, cimri degdegna ku keeni karta. awoodda Iiraan ay u leedahay inay shidaalka kaydiso waxay ku siman tahay 13 maalmood oo keliya. taa macnaheedu waa in haddii muddo 2 toddobaad shidaalka Iiraan la dhoofin waayo si kaydku u nafiso, ay haamuhu buux dhaafayaan. marka la gaaro 26 bishan Abriil, haddii xayiraaddu ay sii socoto, Iiraan waxay ku qasbanaan doontaa inay gebi ahaanba damiso oo xirto ceelasheeda saliidda, maadaama malaayiinta fuusto ee maalintii ay soo saaraan aan loo helaynin meel loo dhoofiyo amaba lagu hayo. farsamo ahaan joojinta shaqada ceelashu waxay dhaawac aan laga soo kaban karin gaarsiinaysaa ceelasha duugga. waxaa ilaha isku dahaaraya gufurka barafiinka, sidoo kalena waxaa meesha ka baxaya cadaadiska joogtada ah ee shidaalka soo tuuraya. arrintaas ayaa keenaysa in Tehraan ay mustaqbalka si aan laga soo waaqsan u lumiso malaayiin fuusto oo ah awood wax soo saar. si kooban, haddii dekedaha ay Iiraan shidaalka ka dhoofiso go'doonka ku sii jiraan 4 maalmood ee soo socota, wax soo saarka shidaalka Iiraan ayaa noqonaya mid gebi ahaanba meesha ka baxa ama uu dhaawac darani soo gaaro. khubaradu waxay soo jeedinayaan su'aal argagax leh: haddii muddadaasi la gaaro, is-afgaradna la heli waayo, suurtagal ma tahay in Iiraan ay shidaalka kaydka uga buuxa ku daadiso badda si culayska looga fududeeyo haamaha, isla markaana looga baaqsado dhaawac aan laga soo kaban karin? farsamo ahaan, jawaabtu waa haa. arrintan si ku meel gaara ayay horseed ugu noqon kartaa sii socodka shaqada ceelasha, waxayna burbur ka badbaadinaysaa kaabayaasheeda. laakiin arrintan waxa ay khubaradu ku tilmaamayaan doorasho halaag ah. haddii shidaalka lagu qubo biyaha gacanka, arrintaasi waxay abuuraysaa musiibo dhinaca deegaanka ah oo noqonaysa tii ugu darnayd adduunka. halistan waxa ay si isla eg dhabarka uga jebinaysaa waddamada Sacuudiga, Imaaraadka, Cumaan iyo dalalka kale ee gacanka ku yaalla. go'doomintan oo khamaar u muuqata waxaa ku gadaaman khatar kale.
falanqeeyayaashu waxa ay ka digayaan in joojinta qulqulka shidaalka keliya ee hadda laga heli kara khaliijka ay qiimaha saliidda gaarsiin karto $150 fuustadii, iyo in cunaqabatayntu ay Shiinaha oo ah iibsadaha shidaalka Iiraan ee ugu weyn ku xambaari karto in uu iska hor imaadka qayb ka noqdo. Khubarada ayaa rumaysan in Iiraan ay horay ugu kufi weysay cunaqabatayn 10 sano saarnayd, haddana ay suurtagal tahay in ay waddooyin kale oo uu berrigu ku jiro adeegsato si ay u sii wadato dhoofinta shidaalkeeda. Go'doominta dhinaca badda ah ee Maraykanku uu ku sameeyey Iiraan, taas oo haddii ay maalmo kala sii socoto kaabayaasha shidaalka dalkaasi ku keeni karta burbur aan laga soo waaqsan, ma sababi kartaa in Tehraan ay dib ugu soo noqoto miiska wadahadalka iyadoo ka nugul sidii hore? mise arrintan waxa ay keeni doontaa musiibo ku wada habsata Iiraan iyo waddamada gobolka?